Taliska amniga caasimadda ayaa wada howlgallo looga hortagayo maleeshiyaadka nabadiidka ee argagixisada kuwaasi oo iyaga oo been ka sheegaya diinta islaamka ku baada qaar ka mid ah shacabka iyo ganacsatada. Kulamo dhex maray ganacsatada iyo saraakiisha ayaa looga hadlay caqabadaha jira iyo dadaalada dawladdu ku doonayso in maleeshiyaadka nabadiidka hal meel looga soo wada jeesto. Ganacsatada ayaa la wadaagay saraakiisha amniga caasimadda in maleeshiyaadkan aysan ku dhiiran karin inay suuqyada iyo goobaha ganacsiga ay yimaadaan, laakiin ay taleefano ku soo diraan hanjabaado oo kaliya. Saraakiisha dawladda ayaa u sheegay ganacsatada inay la socdaan tabaha liita ee argagixisadu ku doonayaan inay ku baadaan ganacsatada iyo shacabka, laakiin har iyo habeen ay u taagan yihiin sidii loo ciribtiri lahaa. Kulanka kadib, taliyaha hay'adda nabad sugidda ee Sodonka Qaranka Niisa ee gobolka Banaadir, Muxyidiin Warbaacshadoor, oo ay wehelinayaan saraakiil kale ayaa tagay suuqa Bakaaraha iyo qaybo kale oo ka mid ah magaalada. Saraakiisha Niisa ee tagay suuqa Bakaaraha ayaa la hadlay ganacsatada kala duwan iyagoo ka dhageystay aragtidooda ku aadan wada shaqaynta ay dawladda la leeyihiin gaar ahaan laamaha amniga. Kooxaha nabadiidka iyo dadka iyaga isu ekaysiiya ayaa mararka qaar sameeya isku daya ay ku carqaladaynayaan ganacsiga suuqyada si ay u helaan baad ayna ku gaaraan danahooda guracan ee ku dhisan dhibaataynta bulshada Soomaaliyeed.